nin waan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aali ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino war khiyaare aan idiin warramo maanta waxaan wax ka soo dhoweeyey salaad maxamed shardi salaad derbi waxaa cajiib lahayd waxaa ila soo dhoweeyo ka mid ahaa dadkii siciid xarawo abwaanka la yidhaaho salaadna wuxuu yidhi siciid xarawo waa macallinkaygii waa ninkii ugu horreeyo kaban ii tumay anoo 14 sano jira waa kuwa cimrigaas ma kudkuda war cimri dheera ma gorgorba war wax 96 dhasha ma ku jiraan dadka soo dhaweynay war kuwaasi dharabtay ku jiraan dhagaysta abwaanka cimrigiisa Allah u barakeeye heestii ugu horreyso uu tumana ila dadaal baa la yidhaahaa dahab la miiriyo miidan la dayn karine ila dalaal dantahay wuumeyn ila dalaal dantahay wuumeyn war aniga midaa xusuusu gale taas ma haddii aad ogsoon tahay asal waxaan ahaan jiray erayganaad ileedahay afka sooma mariseen hooyey aqoon gaabka dhawaculaekaay war dhammaantiin beenaad sheegaysiin ninka heesta u qaaday waxaa la yidhaha beenaraad ma leh war heesta eelbuura ka daran eelbuur walmay anigu waxaan ka xasuustaa dhigi maayo tuutaha dhadhabtii gumaysiga anigoon dhanna u ridin war anamay baa ka xasuusadee calanyow haddaan dhiman wadki igama dheeree lagu soo dhici maayo dhudhunkeenu ku tah xogga dhiiran eego shacabka dhaarsan hilaalsho ninkaan yaraantii baa codka lagu cayuumay nimayo war anugu heesaha salaad derbi garan maaye heesihii geela waxaan ka xasuustaa jeexa doog gale ee jarmada weyn joogi maysida jid bannaan furo adoo geel heesiis mataqaani tatanaa kasaa geel waxaasku hees ma kasee geel kuul maxaska kasaa kurtunkas kulugtaa waaye war wuxuu ahaa niyow geela markuu dararan yahay laba nin dugtaa oreerayadaas ajakis baa sameeyey war maanta heesta lagu soo dhoweeyey madaxweyne farmaajo haddaad ogaan lahaydeen waad yaabi lahaydeen madaxweynuhu waxa uu ka tegey south sudan wuxuuna u tegey heshiisiinta dowladda iyo mucaaradka suudaanta koonfureed hadda heeska lagu soo dhoweeyey naga dhegaysta muxamed farmaajo soomaali gonyongen angonyongen warniyow heesta suudaaniga ee madaxweynaha laha ka dhawaaya inan gaftoy ahlan wasahlan aqii warniyow labada suudaan baa isku qaladaye madaxweynuhu meesha uu tegey waa jubba heeskaanna dhinga dad la yidhaahdo ayaa qaaday marka aan kugu soo celinayna dhegayso muxamed farmaajo soomaali gonyongen war aawa saalax ibnu baadiye iyo maxamed wardi iyo nimankaan wada dhalanno reer suudaan meeye war fanaanka la yidhaahdo maxamuud cabdilcasiis 2019 ayuu geeridooniyo waxaan maqli jiray nin inta xaaba guray oo qaadi waayey xoogaa kale ku biirsaday markuu biiriyaba qaad buu isidhaa marka madaxweynuhu markuu ka quustay maamul goboleedyadii Soomaaliya miyuu South Sudan heshiisiinteeda galay war maya waa soco weyne aan oradno aruusaas ma waryahoy waxaa hor loo yiri bur basarkiisa waa la bartaa waa la balaariyaa waryahoy war aranta madaxweynaha wada digitalowsan makasaasan dareer waa inay roorneen iyo leere war madaxweyne farmaajo intuu salfakiir aadayo buu muuse bixi aado war muuse bixi waxaa la rabaa inuu fadhigiisa madaxweynaha ugu yimaado war madaxweynuhu ma aha wasiirka arrimaha gudaha khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexna wasiirka arrimaha gudaha khusayta warniyow kalamaan iyo nabad iyo nolol waa laba xisbiya isku milin warnimayow khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada wuxuu ku soo dhamaanayaa goolkulaadka doorashada koonfur galbeed ciddii rigooraha dhalisa ayaana ku guulaysanaysa yaa garsoore ka ah ciyaarta war aan hadaba siin sheego hay rigoore bulud buruuf lah ka dhali wallaahi inoonan weelo doogna faragelinta isagni dhahwedagna noo dhaafa warnimayo ayaantaan eray igu soo noqnoqonaya oo nerefoosa ku noqday baa jira dowladdu faragelinta maamul goboleedyada ha ka dhaafto erayga ah doorashada koonfur galbeed yaan la faragelin doorasho heble yaan la faragelin dowladdu faragelinta ha naga dayso eraygaas waa ku xanuunsaday aniga war adduunka doorasho madax bannaan kama dhacdo iska daa Soomaaliya adduunyada
waddamadii ugu waaweynaa waad ogtihiin Donald Trump faragelinta ruushka ku soo baxay waa nimankii dimuqraadiyadda ayuu ku faanay dawladdu faragelin maahana inay lugagelin samaysay xaq u leedahay war inay lugaha la gashay dhex istaagtay miyaa ku taliye war aliyow yoona eedin isaaguna ogolna laakiin jaamac lay wir jaamacow qabyaalada jooji salaad waa ku fahmaynaa sumadaha aad sheegaysay war waxaad sheegayseen wax igala yaab badana arkay axmed madow oo shariifi gaas doorashiisa ay ka horeysay qaylu hadda bilaabay war maysida waxaa la yidhi ama afeefo hore lahaw ama adkaysi damba lahaw war hortaanu waxaan la yaabanahay doorashada galmudug wakhtiba ma leh faragelinna inta dhaaftaa lugahana lala soo galay galmuran dimuqraadiyadda iyadu waa ku dawaqdaba wallahi geedkaana geed muran ee galmudug waa galmudug war galmurun waaba dhaaftay galmuruga teegantanimiyow alla waana murjin war ergeygii qaramada midoobay maanta baydhabo dig ka yidhi doraadna waa kii kismaayo tegey tii ka horraysana waa kii waare la kulmay hadda dadaalka odagu wado ma dib buu u rarayaa cidda mase horay buu u rarayaa maya gaarbisiyohay war orgigaa sheegaysaan annaga yoaanu noo imaan hadduusan dhuusamareeb iyo cadaadad isku hal mar tegey warniyow hadalkaada markaa maqla gaalkacay ay u soo dhexaysa war niman yahow waddada afgooya iyo u dhexaysa muqdisho shacabka waa lagu laayaa cidda laysana lama yaqaan hadda shala keliya 6 qof ayaa lagu dilay weliba inta baabuur laga soo dejiyey hal loo toogtay darawalkiina lama taaban nimanka wax dilaa miyay isleeyihiin mise qosho kalaa jira la garan maayo war qoyskii reexaa jigaabow soo ma ahayn waa la laayood sheegayso arrin murug leh ahayde war murug kale ka dambaysa shalaan kuu sheegnay waaba la yaabana walla weynay waxaa idin laynaya ma rooxaanba gowdhanow qosolka mana gobadaw war amiiradii qaraxii soobatiamka ku soo roray maanta shaarbaha looga istaagay bakistaan iyo soomaaliya kala ahayanaa la yidhi ciidanka xooga dalka hiiraan ku dilaa la yidhi waryahaan hirigna ilan ragaayohay ruux malku qaado warniyo bakistaanna miya idin laysaa waaba yaabe war cid kastaa waana dishaaye xag allaan ka noolla war madaxweynihii cadaada joogay wuxuu yidhi xalka galmudug hataa tanaasul yidhah korsaar ahayul baabaxa uu yidhi war anamay baliyaa banaan lankilileyba baasta iyo carabey iyo wa adaada magaayo walka aamayan ha sawiraayan war anuu ra'iisul wasaaraha galmudug doctor shaakir baan la yaabay wuxuu yidhi gobasha madaxweynaha soomaaliya u fidiyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada waa in la tago galmudugna way tegaysaa buu yidhi marka waxaan la yaabay isagu madaxweynaha galmudug miyaa warniyow ra'iisul wasaare soo madaxweyne yar maaha horaan waxaa loo yidhi farbugtii ninkiisa isog war misoga maalin mahmuuda markaas dhiibi war abiy axmed dawladda soo dhisay oo rag iyo dumar iskugu jiraan maxay qabat war dadkii oromada ka soo jeeday weyd anigana weydin waxaas horta cagtar ma orama mase waa soomaali dad hadduu baled joogo ilan waa isbartaane burhaan soo canfarmaa war maya waa ciise niyow mala kulmoolaa la yidhi beed faaruq maxaska qaadaahe beedka faaruqa ma xabsiga cabdiile ku xihan yahayba war abdiqani oroma aan hirnyamay kooku jarada war yaa ninka oroma maahane oromada dad noogama goye wir